السلام عليكم ودكتور مولود كل دمانتين بيت السلامية. halkan waxaan kasii wadaynaa casharada xalaha ay ku saabsanaa dhanka nafsiga psychiatriga. marka casharadaas muddo badan ma sii wadin, marka kuwiiban hadda kusii dari doonaa qaar kale, gaar ahaan kuwa dadka waaweyn ku dhacaban sii wadaynaa. marka hore waxaan kusoo gabagabeyneynaa taxanahaas kuwa caruurta, ciladaha nafsiga ay caruurta ku yimaad. marka kan waxaynu kusoo qaadanaynaa cilada nafsiga ah ee la yidhahdo gambling disorder, ama waxa weeyaan khamaarka. khamaar baalka khamaarka la yidhahdo baynu maanta ka hadlaynaa, oo aynu sheegaynaa siyaabaha lagu garto qofkan inay haysa ciladaas inaan maaragtay joojin karin. marka waxa weeyaan khamaarku sidiisaba waa cilad ama dhibaato khamaareed aan qofku joojin karin ama soo laalaabta markaasuu isku dayo. marka waxaa jirta sida ku qoran buugga la yidhaahdo DSM-5, ama lagu soo koobo maaragtay xanuunada nafsiga oo dhan buugga lagu soo koobo. waxaa jirta 9 calaamadood ama 9 maaragtay criteria baa jirta oo qofka lagu ogaanayo haddii 9ka 4 ka mid lagu helo inay ciladan hayso. marka waana inay hayso muddo 12 bilood waa inay hayso weeyaan, waxa ugu yar weeyaan ciladaas in qofkaas ku sugan. marka maxaa ka mid ah 9kaas maaragtay calaamadood baan dhahnay qofka lagu garan karo. ta koowaad waxa weeye wuxuu u baahdaa lacag tii hore ka sii badan marka uu khamaarka geliyo si uu u gaadho dareenka uu khamaarku geliyo. marka qofkan maxay ka dhigato marba waxa uu sii baahanayaa lacag ka badan tii hore. markastuu soo khamaaro ama ha lumiyo ama ha soo faa'iiday, wuxuu isku sii dayayaa inuu markale helo tii ka sii badan. taas waa ta koowaad. laba waxa weeyaan wuxuu dareemaa cadho iyo deganaansho la'aan marka uu isku dayo inuu joojiyo khamaarka ama uu hoos u dhigo. qofkaas markastuu socdo waa imka khamaarka noocyo badan buu noqday. waxa soo gelaya imkana dalkeena waxa soo gaadhay xagga Soomaalida marka la eego waxyaabo meelaha imkana waddanka jooga hore uga jiray muddo dheerba, oo dadku wax online weeyaan, dadku lacag dhiganayaan, kuna faa'iidi karaan kuna khasaari karaan. badanna wax kale oo waxay badan dadka meelaha samaysta dee umay samaynin in laga faa'iido cid kale ka faa'iidinayo iyagu faa'iidaan doonayaan. markaas waxyaabahaas ayaa soo batay. one expert miyada mid baa jira kaan waddanka soo gaadhay, walow halkan ruushkan kan uga joogo muddo dheer waa arkay intii joogay 13 sano ka maraya. oo waxaa jirta dhalinyarada qaar baa jira ciyaaraha oo kale baa la oranaya 2 ciyaarood dhacay la oranaya ka kee badanay lacag kala dhiganay. marka qofkuna uu way kala dudo waxyaabo kale oo jiraan marka ciyaar kale oo ku dhex jiraan waa jiraan. marka okay, ka saddexaad waxa weeyaan wuxuu sameeyaa isku dayo badan oo uu rabay inuu ku jaro ama uu ku joojiyo oo guuldaro ku soo dhamaaday. marka qofkaas markuu dhakhtarka u yimaado badanaa inta badan ma yimaadaan dhakhtar ma tagaan nasmada dadkaas, laakiin xeerkan ka mari gaadho dadka way inta badan doorta inkasta dhalinyaradu u badantay ay ku dhacdo. marka markuu heerka gaadho qof waxa uu sheeganaya inuu dhowr jeer isku dayo uu guuldareysay, waa sababtoo ah uu baahday kaalmo dhakhtar nafsiyeed u baahanaya. marka afar waxa weeyaan wuxuu badanaa ku mashquulsan yahay khamaarka, ku mashquulsan noloshiisa. waxa weeyaan afandis rabbi occupied waxa weeyaan wuxuu ku mashquulsan yahay waqtigiisu dhigelinaya siduu u dejin lahaa. maxaa ka mid ah isagoo oo leh maaragtay fikiro joogto ah oo ku saabsan dib u soo noolaynta xasuusta iyo wadaagnimadisa khamaareed buu maaragtay ka sheekeynayaa. wallahi warintaas buu leeyahay warinta maanta uu guuleystay maanta kale waad guuleysan kartaa. waka lacag maaragtay wuxuu sawiranayaa ama wuxuu qorsheynayaa khamaarka soo socda si qorsheynayaa oo si dejinayaa nooca khamaaradu geliyo lacagtu ka helayo waxa la ku dejinaya. marka waxaan u fikrado u dejinaya si doo lacag kala waa ama tii uu lumiye ku soo celiyo. tashanaad waxa weeyaan wuxuu badanaa khamaara marka uu dareemo murug. qofkan tusaale sida marka uu dareemo rajo la'aan uu dareemaya, waxa uu dareemaya in qofkan marka uu dareemo
aad uu dushiisa iska saaro oo kale walaac ama niyad jab xaaladaha markuu ku sugayay uu tegayayo si uu noloshiisa ugu bedelo oo farxad iyo dee farxad samayso maaragtay intii isleeyahay hel dee wadatan lacag u dhigay laakiin ka daro dibi dhal bay ku noqotaa isagoo isla raadinaya oo isla maaragtay xaaladaas iskaga bi aad ku jirto markaas habatu kala ay ku xabsataa taasina waa taas talixaad haddaan ku socono maaragtay taas waxa weeyaan kadib marka uu ku lumiyo lacag khamaarka badanaa uu soo noqdaa maalin kale si uu mar kale u guuleysto waxay ka dhiganta wuxuu daba soconaya oo daba socdaa guuldaradiisii hore oo isleeyahay markan ka soo celi baasha waata markii lagaa bediyey iyo markan adigu guuleyso xaalad badan noocaas aydan soo noqdo waatan dee laleeyahay 12 bilood baa ugu yar haddii lagu sheegayo in 12 bilood xaalada ku jiro tasadabaad waxa weeyaan wuxuu sheegaa been si uu qariyo ku lug lahaanta khamaarka oo ciddii weydiisa uma caddeeyo way badanaa inta lama ogaan karo qofka xataa qofka la noole ilaa uu xaalad dee maaragtay qaybtan oo soo socda sideedaad gaadho mooyaane badanaa laguma ogaado waayo qaybtan sideedaad maxay tahay waxa weeye khamaarka dartii wuxuu sidoo kale qofka khamaarka qabatama ku khamaara xiriirka qoysiidka hadduu dee xaas leeyahay oo kale inta badan waayo xanuunkan wuxuu u badiyay ragga xaaladda nafsigan ragga u badantay waayo dumarka waa ku iman karta laakiin iyaga u badantay xiriirkiisa qoysiid buu ku waayi karaa shaqadiisuu ku waayi karaa waxbarashada hadduu dhiganayo buu ku waayi karaa oo kaga tegi karaa amaba haddii uu fursad xirfadeed kale uu heli lahaa uu raadin lahaa raadinayay mushaharkiisa balaftiisa wuxuu u qiimeynayaaba inuu lacagtaas halkaa dhigo si lacagta looga soo gasho ilaa ay gaadhaba dee marka dambe qoyskiiyo biilkiiba lasiin waayo sidaa caas kaga tagta dad badan baa qoysaskoodii ku burburay waxaanu leeyahay sidoo kale aan ku sidarnay dhibaato ah qofku markuu xaaladahaas soo maro tasdiid horta sagaalada soo dhamayno wuxuu ku tiirsanaadaa qofku marka xaalada soo dhacday uu dhaqaalihiisii ku waayo mushaharkii ku waayo shaqadii masaa ku waayo marka dambe dee wuxuu soo harayaa maaragtay gacmo maran qof taagan u noqonaya marka maxaa imanaya xaaladan sagaalaad bay imanaysa oo ah wuxuu ku tiirsanaadaa dadka kale dhaqaalaha dhibaatada dhaqaale xumo ee khamaarka uu u keenay awgii wada markuu xaaladana soo maro waayo shaqadiisii waayo maaragtay wax kasoo kale uu ku tiirsanaayo dhaqaalo kasoo helayay maxaa ugu tiirsanaya marka dee cid kale in xataa dhalooshiisii dee hataa cid dee maaragtay beriis kale cunay noqonaysa kama dambaysa ehelkiisa nolosha kale dhan uu ku tiirsanaada dhammaanteed saas daraadeed halkaa marka ay marayso dee qofkii laga yaabo marka hore inuu meel gaadhay isku filnaansha gaadhay qoys samaystay isaga laftiisa wax laga sugayey biilinayay markuu heerkaa gaadho halkaa hoos ugu soo dhaco isaga qofka ku tiirsanaa waxay ku keentaa inuu dilo qofka isagoo dhib isu geystay ku keenta isaga hadduu isu haraamayo oo isu hiifaya oo isu ducumanaya soo saas ugu wadana inuu isla sheekaysigu gelaya marka maxaa ku waday war maalintii markaa martay balbad markii mar balmaad aan dhammaanayba qofkaas dee waad garan kartaa xaaladda qofka ay ku jirto oo qof heer nolosha fiican gaadhay dee heer qof khamaarayo lacagtiisa bixinayo dee waa heer uu xili karo dadka qaar baana jirta iyagu dhaqaale fiican haystayba dhaqaalo badan intay gelin iyagoo isla dhaqaalo badan ka helo ay iyagii laftoodii ay sifirka maaragtay keentay in qofku garaaco dhibaatada kala kulmo marka waa bahashaas maaragtay sagaalkaas waxyaabaha lagu soo kooba weeyaan qofka in lagu arko sidoo kale waxa weeyaan intaas ha jirtee waa inaanay keenin wax loo yaqaano maniya inaanay keenin oo qofku inaanu qof dee heer marba jirto qofka xaalada nafsiga calaamada ay leeyihiin xanuun nafsiga ay leeyahay oo qofku uu dareemayo farxad aad u sarreysa uu maaragtay wax kasta samaynayo dee uu kacsan yahay waa inaanay taasi marka aydan keeninba marka la sheegay kuwa kale muhiimka maaragtay ay tahay inay xusnaydan waxa weeyaan halkan ay tahay in laga saaro tusaale intaynan dawada u gelin ama maaragtay loo daweyn karo waxa weeyaan
وحوين differential diagnosis كوي قرض عفمات كبرتوي جرانس أما مرتي كلا ساردة حرورة كلا إيه دمشق لي كلام حالة كلا إيه لا صار كلا كرتني معها صار دوقف بكشة قيم وحنا يقارنين كامنك وشغل شو تايد وقف كذي وحاس مشغول سنة ولو دي سرعة بس إنك سوق جاري مرك على ما هندي مجال صوتي سو كلا social government ولا نشوف سو قف كذا كذا أنت يوم أصحابتي سو كلا لا يعرف ما تقابلني كاس ومركا وكتاحته taasina way iman kartaa waxa kale martida laga saaro laga soo sheegay panic waxa loo yaqaan manic episodes iyadana laga saaro qofku inuu ma xaalado gacsan yahay kale inuu ku jiro kale xaaladahaas oo kale haday keenaan iyadana wada kale sidoo kale waxa weeyaan laga saaro personality disorders kama iyadana casharo badan baan ka sameeyay gaar ahaan waa inta laga saaro ta la yiraahdo maaragtay antisocial personality disorder oo qofka antisocial personality disorder leh wadadka badanaa ku dhacba xaaladani in ka sheekeen antisocial maxay tahay waxa weeyaan tu oo dabeecad liddi ku ah dabeecadda caadiga dadku u yaqaanaan qof deeno qof ma bulshada ku dhex jiri kara yahay ixtiraam ku dhex laho dadka aan dhibaato u geysan hawlahaas ma ayada bulshada caadiga u taqaana dabeecadda caadiga inta liddigeeda qofka ma dhibaato badan inta badan xabsiyo ku jiro hadba cid ay haystaan kolba ma waxyaabo noocaas oo kale dadka inta calaamadahaas nafsiga ah leh badana waxay u badan yihiin dadka halkan ku sii dhax oo waxa looga saaray weeyaan way labada waa la saari karaa marka waxa jirta lama laha haddii qofku antisocial hayso ama uu qofku yahay dabeecad liddi ku ah dabeecadda caadiga loo yaqaan bulshada kama dhigna in la oranayo intaas hayse antisocial maxay gambling ma hayo ama khamar ma hayo la khamar ama oranayo waxa laga wadaa waxa la eegayaa inay tan iyo tan wada haysan marka labada marka qof dhakhtar ku sheegay qof waxa labada markaas waa tahorriisa la eegay inuu waayo mar walba waxa soo horeyn doonta antisocial qof markuu de taariikhda ka sheekeeyay xaaladiisa oo dhan ama cid kale la weydiinay elkiisa waxa soo horeysa markiisa qofku inuu dabeecad lahaa antisocial qofku markiisa hore waxa uu qofay anigu ma sheegay in faraalka qaad maaragtay markiisa hore uu ahaa dadkaas maaragtay si ay ku tabeeyay dhibaato badan ku keentay nolosha ay ka gelisay dayac dhaga ilka kaga timi sawso ku galay doctorana iska dhicisa uu lahaa ay halka la martay markii dambe keenay noqotay qof soo laftiisa dhibaato u geysto markii dambe xoog yeeshay in halka la gaano badal lafteeda imanaysa laakiin almuhim waxa way taana in maaragtay dil ogaado oo ay waxyaabo keeni karaya waxa kale oo iyadana jirta haddii ay xaalad dawo oo kala qaadanayo qofka xaaladdan keento suuq loo yaqaan dopamine dopaminergic medication ama dawooyinka dopamine korka kuwa hadduu qaadanayo lafteeda in meesha laga saaro qofku waxyaabaha ku keeni karta markaas waa intaas inta aan maaragtay rabaan ka sheego dhanka inaan ka teginay dawada qofkan ka soo sheekeynay waxyaabahan qofka haya calaamadihiisa lagu garanayo inta 12 bilood wixii ka sareysan bal qofka haysan uu sheegi karo haddaynu nimaado kuwa kale laga saari kara isu eegiin haddaynu nimaado dawada waxa qofka dawo maaragtay dawada la yaqaan qofka loo qoro ma jirto qofka la siin kara laakiin walaw ay jirto kuwa la yiraahdo serotonin waxa la yiraahdaa reuptake inhibitor ama SSRIs baa la yiraahdaa dawooyinkaas kulley bahda caafimaadka garanaya dadka kan daawanayaan haddii kale waxa weeyaan waa dawooyin kor u qaada serotonin tafaasho markaas kuwaas waa laga yaabaa inuu wax tarta laakiin ma jirto dawo caadi ah oo iyadoo loo qoraxo laakiin waxa lagu dabeeyaa waxa weeyaan cilmi nafsiga dhakhaatiirta baratay waxay ku dameeyaan wax loo yaqaano CBT ama cognitive behavior therapy oo ka dhigan dabeecad hagaajin beenaadana Soomaali qofkii baa laga wareysanaya marka wixii xaaladdan waxay la soo martay waxa ku keenay waxa soo dhan qofka martay ka hadlaya kabacdi wuxuu dhakhtarkii siinaya sidii maaragtay dejinay barnaamij qofkan wala shaqeynayo sidii uu uga bixi lahaa xaaladda ayaa ay wada dejinayaan taasi ku shaqeynayaan marka inkastoo qof kasta ay noqonayso si gaar ah in qofkaas uu la shaqeeyo dhakhtarka nafsiga
waxaa jirta wax kaloo la dhahdo Gamlaris Anonymous waxay dhahdaan ama GA oo ka dhigan in loo sameeyo koox ama group baa la sameeyo qolkan oo kale lana isugu keeno dhammaan dadka cabanaya in gambling oo kale ay hayso ayaa qof kasta wuxuu ka sheekeynaya kan soo fadhiya hebel baa ku fadhiya hebelaha halkan hebel uu fadhiya waa anigu dhegeysan waxaan dhakhtarkii baa jooga marka qof kasta wuxuu ka sheekeynayaa waxaan halka kasoo maray xaaladiisa wixii geliyay sidoo uu rabo inuu ka baxo isaga ka shaqaaday marka kan dhegeysanaya marka waxa laga wadaa in dadkan is caawinayo marka asxaab bay noqonayaan la raba inay ka wada gudbaan dhibaatada marka aad bay u caawisaa taasi oo waxay tahay marka inuu maamulkeeda yeesho سنة فراغ بحنت وسؤالها سويديني مركز قد بدي قف كائن هذا الكاس الوضع فاهم وهي سويديني يعني مركز دكتور معمولي مركز وتعطى سنوات أنا قلت مهم سن أنت بدن هذا أتبي حطها دنك ده كله دنك معرفتي حاجة دي أنت يدوات كرنس ده هي يحتاج أنت خمار مركز وربا marka laakiin waxa la yiraahdaa caanada tayda la qabay marka qofka haduu waxa la dhacay bedel lama canaanay waxa weeyaan tala iyo tusaale wixii la siin karo xaga diinta tahay wadaadada tahay inaga cilmi nafsigeena dhaqaatiirta cilmi nafsigeena aan ku soo calaamaanay waa diinta inta baratay way laftu wax badan day kastari kara qofkaas waxa qaatay allow laabto ولو تمركب بين أوران دي الله بكفوا قد أوران مني حالات نبالف للدروب تقفك وحاول تبتشر عسنية قالها تبتشر عسنية أما ولو كانت قالي ولست قال الدنيا ذاتي غاربة مركب مبسيطة نقلي ينوار كي يوح ما تحلق فايدة كرا ولكن ما يلعب الشيء ولو لعب بعد كيريس قفنا أنت قوي ما الدنيا العكسية ما مركب كهرباء أنت مهمة وين دلوقتي وحلوصة مستنوى ندقل ونلعب taasina waa taas marka waxaan ku soo koobaynaa aan rajeynaa kulli cid kasta oo xaaladda la kulantay inuu maaragtay ka shaafiyo xaaladda nafsiga galeen sidoo kale ee maaragtay waayo dhanka cilmi nafsiga waxay ku jirtaa waxa loo yaqaano in chapterada laga hadlo kantaroolunka la yiraahdo qofku waayo xanuun badan baa jirto dadku waayaan kan maamulka nafta qofku waayo waxa badan oo iska qaban kari waayo jirto qaar ba addiction oo kale waxyaabo kuwaas ku jira iyagu marka dhanka waa ku jirta markaas aan soo koobinaa waxaan u rajeynayaa talada dambeysay inay tahay hooyeen qofku inuu raadsado dhaqaatiir cilmi nafsi oo arrintaas wax ka tari karaya haduu dibadaha joogtay waa badanaa oo badan yihiin dadka la helaya haduu dalka joogana waxa weeyaan inaad hel raadsato dhakhtar nafsi ku takhasusay wax kala qabta أو ولا تدبين مالتي كل أوران ما يدعي علاج أنت تطلع وصول حركة قرآن وحدة قرآن مالتي قرآن اسمه بلو بهين لكن واحد بعد عيد كل دقيقة ستة مالتي كاغورتا وحنا بس كما علم النفس وحنا نفس وراني وقد حقف كتاب تاجر عيد كورس بلو بهين هذا عيد كورس وبهين بدن كذا ترانس اسمها كريم لدقيقة لكن ترانس يمكن تقوها حالك ما لازم تكون بين دمانتي بقى ما زنتين والسلام عليكم.